Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada walaalahayna qiimiga badan oo channelkeena Zack Multimedia. Haddii ay tahay marka kuugu horeysa YouTube channelkan aad soo booqatay, magacaygu waa Zakariya Axmed. Waxaan YouTube channelkan aan ku soo bandhigaa arrimaha multimedia. Markaan daawanayno muuqaalada, waxaan jecelnahay inaan daawano muuqaalo aad iyo aad u kala duwan. Xitaa haddii hal muuqaal aan daawanayno, waxaan jecelnahay in muuqaalkaasi aan daawanayno inuu qeybo badan uu ka kooban yahay, iyo visual fara badan uu ka kooban yahay. Taasoo sababayso marka ugu dambeyso in muuqaalkaasi aad iyo aad uu noo xiiso geliyo aana dhameysano. Sidaas darteeda qofka mar walba uu muuqaal daawanayo wuxuu jecel yahay qeybo kala duwan inuu daawado oo hadba marba dhinac laga tusiyo qofka. Taasoona inta badan dadka qaarkood ay u yaqaanaan B-rollska. Muuqaal ayaa socdo, muuqaal kale ayaa lasoo dhexgelinayaa. Sidaas darteeda marka haddii aan usoo laabto mowduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaa intro loogu sameeyaa Adobe Premiere Pro-ga. Runtii inta badan samaysitaanka introska waxay ku xiran tahay hadba channelkaaga waxa markaasi aad kusoo gudbinayso. Laakiin sidaas darteeda dadka qaarkood ma xiiseynayaan in intro sida loo yar sameeyo ee waqti badan ay geliyaan. Laakiin waxay jecel yihiin in wax la badbedelin kara in la tusiyo. Sidaas darteeda marka meeshan waxaan kuugu soo arooriyey 30 oo intros ah oo ku saabsan Adobe Premiere Pro-ga. Kaasoo markii aad heshana kaliya loogadaada aad ku badbedelan doonto. Introskan aan idin soo xulayna aad iyo aad ayuu idin cajbi gelin doonaa. Waana projectyo ku shaqeynaya Adobe Premiere Pro-ga. Marka yaan war badan idinku daalinay marka kusoo dhawaada. Runtii intaan bilaabin ka hor waxaan ku xasuusinayaa waxay tahay introskani ama projectyadan waxaan soo dhigi doonaa dhanka iyo Telegram channelkeena ayaan soo dhigi doonaa. Asxaab fara badan ayaa waxay weydiiyeen maxaa u soo dhigi weysa dhanka iyo description-ka. Taasna dhowr jeer ayaan ka hadlay oo ma soo dhigi karo. Waxaan soo dhigi karaa kaliya dhanka iyo Telegram-ka. Halkaas ayaad wax walba aan soo gelinay ayaad ka heli doontaa haddii aad markaas aad nagu cusub tahay. Marka kusoo dhawaada cashirkeena. Haddeerta markaan isla imaano dhanka iyo computerka, faylka aan Telegram-ka aan soo dhigi doono insha Allah waa fayl sidaan oo kale ah. Waa intro Premiere Pro-ga. Laakiin marka ugu horeyso waa inaad ka dhigtaa zip. Sida u jeeda cabirkiisana waa 1.7 GB. Laakiin markaan zip ka soo dhigo wuxuu noqon doonaa 347. 347dan ayaa waxaan soo dhigi doonaa dhanka iyo Telegram-ka. Dhammaan faylasha oo idilna uu ku jiri doonaa. Marka sidoo kale marka waxaad isweydiinaysaa faylka maxaa sidaan ka dhigay oo sidaan oo kale uu ahaan waayo. Marka kani waa 7zip, kana waa folderkii caadiga ahaa. Markaan 7zip aan ka soo dhigo size-kiis wuxuu noqon karaa 347 MB ayuu noqonayaa. Marka ugu horeyn marka sidee ayaad extract aad u leedahay haddii marka aad u baahan tahay 7zip-kan kaliya marka Telegram channelkan ayaan soo dhignay 7zip waad ka yara helaysaa. Haddiiba mar hore aad computerka aad ku install gareysane waa sidii markaasi loo baahnaa. Ugu horeyn marka sidee ayaad extract u leedahay kaliya marka waxaad leedahay right click kadibna waxaad ku dhufanaysaa 7zip. Markaan 7zip aad ku dhufato kadib waxaad kasii dooranaysaa extract to faylka magaciisa iyo asagoo folder markaasi ayaa lagu soo bandhigi doonaa. Kadib marka faylasha sidaan oo kale ayaan usoo diyaariyey. Marka waxaan kasoo dhigay part 1, part 2, part 3. Marka waxaan rabaa inaan mid yarna aan idin ogeysiiyo. Midaasna waxay tahay projectyadan qaarkood waxay wataan codkii markaasi loogu baahnay. Kuwa qaarkoodna codka markaasi ma wataan. Ugu hore marka part 1 oo kale markaan furno wuxuu ka kooban yahay 10 ayuu ka kooban yahay. Part 2 markaan furno sidoo kale wuxuu ka kooban yahay 10 xabo ayuu ka kooban yahay. Part 3 asagana sidoo kale. Marka hadba marka midkaad rabto ayaad tijaabinaysaa. Kaliya marka anaga hadeertaan mid iska example fudud ayaan keensanaynaa. Tusaale marka anaga hadda part 1 oo kale aan iska furno kuwaani mid un aan iska doorano. Tusaale ahaan marka hadeertaan waxaan dooranaynaa projectigii 7aad. Haddii halkan mid aan ku tusiyo kuwa kalena sidaas oo kale ayaad u badbedelinaysaa. Kaliya marka waxaad ku dhufanaysaa midkan 7aad kadibna waxaad ka dooranaysaa projectigii 7aad. Marka hadeertaan waxaa lagugu yara furayaa dhanka iyo Adobe Premiere Pro-ga. Xoogaa marka sidaan ayuu usoo yara daahaa. Wax marka dhibaato markaas ay leedahay malahan. Marka waxaa laga yaabaa marka typeska aad ku shaqeynaysay oo tusaale anaga hadda Zack Multimedia ayaan ku yara shaqeynaynay. Marka waxaa laga yaabaa inuu sequence edit ama waxaa laga yaabaa inuu ku geeyo typeka editing inuu ku geeyo ayaa laga yaabaa. Marka dhib malahan inta ayuu wuxuu ka dhigayaa meesha loogadii iyo waxyaabihii aad rabtay aad ka soo gashan lahayd. kaliya marka ugu horeyso meeshan sida u jeedo markaan play aan dhahno codkii wuu yar wataa. Kaliya marka waxay kaaga baahan tahay inaad meeshan aad loogadaada aad soo geliso.
sidee ayaad ku soo gelinaysaa kaliya waa lagu yara sheegay waa kan meeshan loogada ay ku qoran tahay ayaad dooranaysaa marka meeshan loogada ay ku qoran tahay markaad sidan oo kale aad u furto meeshan marka sidaa u jeedo laba sawir ayaa iskugu jiraan midna waa kana midna waa kana kaliya markaad deertaan waxaad samaysanaysaa loogadaada ayaad soo gelinaysaa kaliya marka waxaad leedahay file import loogadaada meeshay taalo adiga markaas iga garanayo kaliya marka import ayaan leeyahay loogada ayaan soo gelinayaa marka tusaale ahaan markaan hadeertaan markaan loogadayna aan meeshan soo gelino marka ugu hore sequencigan ayaan ku jirnay hadeertaanna waxaan ku yara jirnaa sequencigan loogo ayaan ku yara jirnaa kaliya marka sawirkeena loogada ayaan soo jeedayna waxaan keenaynaa qaybta loogada kan ugu sareeya ayaan saaraynaa sidaa u jeedo marka labada loogo isma qaadayaan marka waxaan u baahannahay loogadan animationada ay wadato inaan midaan aan gelina ayaan u baahannahay kaliya marka tibkaani aad iyo aad ula soxo sidii labadan loogo oo kale u muuqato oo kale ayaan u muujinaynaa kaliya hadeertaan anaga loogadeena qaybtan sare ayay saaran tahay kaliya marka loogada midka hoose ayaan kan ka dhigi doona waan soo jiidaa waxaan keenaa meesha uu loogada koowaad ay ku dhamaato waa marka hadda meeshan loogadeena koowaad waxaan keennay meesha ugu hooseysa ayaan keennay marka midaan labaad ayaan sidoo kale ayaan samaynaynaa kaliya aalti ayaan qabanaynaa si aan u koobiyeno layer kasta oo Adobe Premiere Pro ku jiro oo qaybta iyo timeline-kana ku jiro sidaan ayaa loo koobiyaa aalti ayaad qabanaysaa qaybta sare ayaad jiidaysaa ama dhinaca markaasi aad rabto marka anaga hadda qaybta sare ayaan u baahannahay kadib layerkan sare sidaan uma dheereen waa kana midkan waa sidaan uma dheereen kaliya waa soo gaabinaynaa marka waa soo yaraynaynaa ilaa ay cabirka sidaan marka hadeertaan sidaa u jeedo in meeshan la ii yara sheego oo calaamadda inay intu ku eg tahay waxa ii sahlaya waa snapkan hadeertaan marka saameynta ku wada jirto inaan ka soo qaato ayaa lagaaga baahan yahay tusaale ahaan oo kale midkan sare markaan hadeertaan doorto qaybta iyo effect control aan tago sidaa u jeedo scale-kiisu waa 0 opacity-giisu waa 100 marka sida saameyntan oo inta dhan kaga jirto ayaan u baahannahay inaan soo koobiyeysano kaliya isma dhibaysid shay saameyntiisa haddaad rabto inaad soo koobi garayso kaliya shaygaas ayaad dooranaysaa markaad doorato waxaad leedahay control C midka aad rabto markaas ayaad dul tagaysaa kadib marka waxaad keyboardkaaga ka qabanaysaa control alt V markaad ka qabato maxaad u baahan tahay marka effectiga loo adeegsada maad u baahan tahay opacity-ga maad u baahan tahay waxaad markaas aad u baahan tahay ayaad inta ka saaranaysaa anaga hadeertaan motionka waa kaaga baahannahay qaybta scaleska opacity-ga waan kaaga baahannahay sidoo kale Gaussian blur ayaa loo adeegsaday xoogaarkan waxa laga yaabaa inay cilad yar ay keento waan isla fiirin doonaa marka hadda motionka effect waa saartay layerkaasi motionka siduu u ahay oo kale igaaga soo qaad opacity-ga siduu u ahay oo kale igaaga soo qaad sidoo kale waxaa ku yara jiro Gaussian blur marka dhibaato ma laana leenahay kadib waxaan leenahay okay hadeertaan saameynta waa nagala soo qaaday marka midkan hoose yaal asagana sidee ayaan saameynta ugu soo qaadanaynaa marka ugu horeysa asiga ayaad dooranaysaa inay saameyn ku jirto in kale waxaa ku kala ogaan kartaa waad dooranaysaa markaad doorato sidaa u jeedo meeshan scale-kiisa waxaa laga dhigay 86 keyframe ayaan meeshan ku yara jiro sidaa u jeedo sidoo kale wax kale hadeertaan markaasi loo adeegsado malaha kaliya anaga hadda keyframeskan kale kuma samayn karno layerkani marka kan ayaan kasoo koobi garaysanayna marka waxaan leenahay control C midka aan wax kasoo koobiyeysanayno waa midka hoose waxaan leenahay control C kadibna midka aan rabno inaan saameyntaas aan ku apply gareyno ayaad dul tegaysaa kadib marka waxaan leedahay control alt V markaad tagto kadib marka waxaa lagu leeyahay sidaan miyaad kaga baahan tahay opacity-giis ma u baahan tahay sidoo kale motionkiis ma u baahan tahay motionka lagu yara sheega wax kale ma ahan waa rotationka iyo positionka iyo scaleska kuwaasa waxaa laisku dhahaa motioniska marka kadib waxaan leenahay okay aan leenahay marka cabirkiis waan soo qaadin marka labadan loogo oo qaybtoosa noo yaalaan waan ka maaranay marka victa ayaan ka qaadanaynaa victa kaliya hadeertaan loogadeena sidaan ayay ahayd sidaan ayay noogu soo muuqanaysaa runtii midkii hadda Gaussian blur-kana cilad nooma aysan keenin marka hadeertaan dhibaato marka ma lahan kaliya loogadeen anaga saameyn dhaqdhaqaaq oo idil kuma jirin laakiin dhaqdhaqaaqan waxaan kasoo koobi garaysanay labadan layer kan iyo kan ayaan kasoo koobi garaysanay kadib marka waxaan usoo laabanaynaa sequence-geena weynaay hadda qaybta loogada ayaan ku jirnay waxaan usoo laaban doonaa sequence 1ka hadeertaan sidaa u jeedo meesha waxaa noola soo geliyey loogadeena kadib markaan play dhahno sidaas ayay usoo muuqan doontaa qaabkaasi ayay usoo muuqan doontaa
marka midkan kalena maxaa waaye midkan magacaaga ayaad ku qoranaysaa ama haddii loogadaada mid sidaan oo kale u jiifjiifs ee tahay ayaa sidaas oo kale ayaad ku qoranaysaa marka kan ayaad 2 jeer klik siinaysaa markaad klik aad siiso marka ugu horeyso waxa lagaaga baahan yahay essential graphics ayaa lagaaga baahan yahay inaad ku yara shaqeyso sababtoo kan waa iska qoraal caadi sidaad u jeedaan marka qaybta iyo essential graphics-ka Windows-ka ayaad furaysaa kadibna essential graphics essential graphics marka hadeertaan qaybtan inta ayuu noogu soo yara daraya waa kana essential graphics qoraalka ayaa laga controlaa marka cabirkiisa iyo colorkiisa wixii markaasi qoraal ku saabsan kadib 2 jeer ayaan klik siinayna marka magacan rabno ayaan ku qoranaynaa tusaale waxaan leenahay Zack marka intaas markaan ku qorto kadib haddaan rabo farta colorkeeda qaabkeeda waan bedeli karnaa kaliya layerkana ayaan ku dhufanaya kadibna essential graphics ka deertaan aan keensaday ayaan dooranayaa marka essential graphics ka marka effectigan ku jiro ma rabo kaliya qoraalkana ayaan rabaa Zack Multimedia kadib haddaan rabo colorkiisa filka ayaan inta ayaan ka bedelayaa haddaan rabo colorkan rabo ayaan inta kaga dhigan karaa tusaale waa kana kadib okay aan leeyahay colorka sidaas ayaan ugu bedelay marka essential graphics kan wax walba qoraalku ku saabsan farta sidee u taalo dhammaan inta ayaa ka yara bedelaysaa marka anaga marka uma baahni inaan waxyaabo badan aan kasii bedelno marka hadeertaan control z aan iska dhahno fartiina midda cadaanta ayaan u baahannahay marka tan ayaan naqancisay tan ayaa marka aan iskaga baahannahay kadib marka hadeertaan aan laabado kadib hadeertaan play aan dhaho marka xoogaa aan soo weynayo screenka soo weynayo tusaale 1/2 kadibna play aan introga qaabkan oo kale ayuu kuugu soo muuqanayaa kadib marka hadeertaan waxaa u baahan tahay inaad save gareysato sidee ayaad u save gareysanaysaa sida fiidiyoyada aad u save gareynaysay oo kale ayaad u save gareysanaysaa dhammaantood ayaad dooranaysaa oo move toolka adigoo kuu dooran dhammaan ayaa sidaan dooranaysaa ama play heatkaaga ayaad waxaa geenaysaa muuqaalka bilowgiisa sidaan hadda geeskan oo kale ayuu joogaa keyboardkaaga waxaa ka taabanaysaa i kadibna meesha uu ku dhammaado ayaad tegaysaa kadib keyboardkaaga waxaa ka taabanaysaa o tusaale haddii waxyaabo kale aad inta aad ku editin gareynayso laguma save gareynayo kadib markaad waxaad leedahay control m markaad dhahdo control iyo m ayaad isla qabanaysaa kadibna waxaa lagu geyn doonaa meesha exportingka sida markaasi aad u save gareysan lahayd kaliya marka waa iska fududahay sida caadiga ayaad u export gareynaysaa kaliya meeshan output nameka waxaad ku sheegaysaa muuqaalkan ama introgan meesha aad ku save gareyn rabto marka waad dooranaysaa klik aad siinaysaa anaga hadeertaan waxaan iska saaranaynaa qaybta iyo documentskan ayaan iska gashanaynaa kadib magacaan rabna ayaan ku qoranaynaa tusaale hordhac iska fudud kadib waxaan leenahay save hadda markaan save dhahna sidaa maya save aan ku dhahna maya xoogaarkan aan iska weynaysano hadeertaan weli sidaas save kuma dhihin kadib renderka ayaan ficta saaranayaa kadibna meeshan cbr-ka ayaan dooranayaa xoogaa yar cabirkiisa 15 ayaan ka dhigayaa meeshan kadib marka waxaan leenahay export marka haddii hadeertaan aan taabano export introgan hadeertaan aan sameyn waana loo save gareynayaa kadib hadda export sida u jeed marka introga sidan sahlan ayaa lagu export gareynayaa haddii aad videogan ka faa'iiday fadlan la garee lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana uga faa'iidaystaan haddii aad nooga cusubtahay nooga soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walbo aan soo gelino waana ku mahadsantahay daabashada muuqaalkan ugu dambeyntiin waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waynoo muuqaal kale guuleysta maca asalaama